waxaa dib loo dhigay safar duulimaad oo ay ku galeysay shirkad duulimaad oo u kala gooshaysay Miami iyo Los Angeles kadib markii haweeney careysan ay ninkeeda ku garaacday laptop amaba computer maadaama ay ku aragtay inuu eegayo oo isha la raacayo dumar kale. dagaalkan ayaa waxaa duubay mid ka mid ah rakaabkii diyaaradda oo u diiwaan geliyay sida ay u garaacday uguna qaylisay ninkeeda. dhacdadan ayaa dhacday 21 July waxayna ka dhacday diyaarad dusheed. diyaaraddan waxay ka kicisay Miami waxayna u socotay Los Angeles. muuqaalkan waxaa ka soo muuqanaya haweeney la yiraahdo Tiffany McLemore oo ku qaylinaysa ninkeeda caayna huwinaysa eryada ay ku lahaydna waxaa ka mid ahaa ma waxaad doonaysaa inaad eegto dumarka kale naarta gale. waxa uu ugu jawaabay aqligii miyaad beeshay. xilliga iyada ah ay shaqaalihii diyaaradda isku dayeen inay dejiyaan oo ay ninka boos u bedelaan. markii uu isku dayay inuu ka bedesho booska ayay ka daba carartay oo ay laptopka ku garaacday. ugu dambeyn lamaanahan diyaaraddii waa laga dejiyay waana sababta diyaaradda dib u dhaca u keentay. sida ay goobjoogayaal sheegeen haweenadan ayaa aad u cayday ninkeeda laakiin waxaabihii ay ku caynaysay badankood lama duubin.